السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحنا جنالك مركز سود وذا مقالك waxaan rabaa inaan idin kula wadaago madaxweyne Trump oo ku dhawaaqay maanta inuu xilkii ka qaaday wasiirkii amniga gudaha Mareykanka Kristi Noem waxaan ognahay cadaadis xoogan ayaa saarnaa haweeneydan iyadoo labadii maalmood ay la soo dhaafay xitaa sanadku ay su'aalo la xiriira shaqadeeda ay weydiinayeen haddaba Trump yuu ku bedelay waan idin la wadaagayaa iyo maxay yihiin waxyaabaha sababsaday shaqadeeda ama inay xilkeeda wayso wasiirka amniga gudaha Kristi Noem arrimahaas oo idil ayaan idin la wadaagaya maalmihii u dambeeyay waxa cadaadis xoogan oo saarnaa amaba aan iraado bilihii u dambeeyay wasiirka amniga gudaha Mareykanka Kristi Noem haweeneydan waxay noqotay wasiirkii ugu horeeyay ee Trump xilka uu ka qaado golihiisa wasiirada ilaa iyo markii uu magacaabay Trump afartiisii sano hore waxaan ogeyn in xilka qaadistiisu ay aad u badnayd barnaamijkii you are fired oo wadi jiray camal inuu ka dhigay qof kasta shaqada uu ka ceerinay laakiin hadda markii labaad uu xilka ku soo laabtay sanad iyo ku dhawaad 2 bilood oo xilka haya ma aysan jirin wasiir uu xilka ka qaaday laakiin cadaadiska ugu badan waxa uu saarnaa wasiirka amniga gudaha Kristi Noem sabab la xiriira howlgallada ciidamada ICE ay ka wadeen magaalooyinka kala duwan ee gobolada Mareykanka haba ugu badnaato tii California Los Angeles ka dhacaysay tii Chicago iyo waliba tii Minneapolis iyo St. Paul waa meelaha ugu badan oo howlgallada ciidamada ay sida xoog ah ay uga sameynayeen haddaba Kristi Noem labadii maalmood oo la soo dhaafay waxa su'aalo kulul weydiinayay aqalka sanadka ee Congress-ka Mareykanka gaar ahaan guddigiisa cadaaladda waxana wax laga weydiinay waxay ahayd howlgallada ciidamada ICE iyo sidoo kalena lacagta wasaaradda amniga gudaha qaabka ay u qarash gareysay iyo waliba xiriir jacayl oo kala dhaxeeyay mid kamid ah la taliyaasheeda arrimahaasi ayay ahaayeen waxyaabaha ugu badan ee la weydiinay sida caadiyan ah marka wasiir la hor keeno mid kamid ah labada aqal oo Congress-ku ay su'aalo weydiinayaan xisbiga uu ka tirsan yahay waxa ay la saftaan isaga laakiin waxa la arkay xubno Republican oo ugu baaqaya Kristi Noem inay iscasisho waxa kamid ah Tom Tillis oo North Carolina laga soo doorto rajana aan kala hayn oo sheegaba inuu doorasho kale mar dambe uusan tartami doonin maxaa yeelay Trump iyo isaga waxay isku la dhaceen arintii Epstein file sida darteed ma tartamaya ayuu yiri marka waxa ay ahayd in uu talaadadii ugu baaqay inay iscasisho haddaba Trump waxa uu bartiisa True Social-ka ku soo qoray qoraalkan wuxuu leeyahay waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in senatorka aadka loo qadariyo oo laga soo doorto Oklahoma oo magaciisa la yiraahdo McWayne Mullen inuu noqonayo wasiirka amniga gudaha ee Mareykanka laga bilaabo bishan March aynu ku jirno 31deeda sanadkan 2026 marka inta bishan ka dhiman ayaa Kristi Noem ay xilka sii hayn doontaa waxana uu sheegay hadda wasiirka hadda xilka haya oo shaqo intii ay xilka haysay shaqo wanaagsan soo qabatay isla markaana natiijooyin wanaagsan ay ka dhasheen gaar ahaan arrimaha xuduudda marka arrimihii ICE waa uu ka reebay maxaan ognahay ICE waa ay ku fashilantay wasiirka amniga gudaha Mareykanka marka la eego arrintii ka dhacday dilkii labadii muwaadin ee Mareykanka ahaa Rene Good oo 7 January Minneapolis lagu dilay iyo Alex Brady oo isagan 24 January lagu dilay Minneapolis arrinta la yaab kale waxa ahayd markii labadaasi muwaadin ee Mareykanka ay ciidamada ICE gacantooda ay ku dileen hadaladii shirarkii jaraa'id oo ay qabatay oo ku tilmaantay inay ahaayeen argagaxiyaal gudaha ah arrintaasi xitaa xubnaha Republicanka qaarkood ee shacabka Mareykanka iyo guud ahaan caalamka waxay noqotay mid aan ka gatamaynin Trump markii dambe oo cadaadisku uu kordhay waa kii awoodaheeda yareeyay wasiirka amniga gudaha Kristi Noem isla markaana Minneapolis amaba Minnesota u diray Tom Harman oo u qaabilsan arrimaha xuduudaha iyo masaafurinta taasi oo sababtayba markii dambe ciidamadii ICE in laga soo qaado gobolka Minnesota gaar ahaan magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis marka Trump waxa uu leeyahay marka wax wanaagsan ay ka qabatay arrimaha xuduudaha haddana waxaan u wareejinayaa ayuu xilkan waa xil cusub oo aan horay u jirin marka maadaama wasiirkan ay horay gudoomiyaha gobolka ay soo Dakota u ahaan jirtay Trumpna ay ku soo birtay gulihiisa wasiirada in meel banaan ay dhacdo ayuu diidaya marka xil ayuu u baarbaaray waxa uu yiri waxa aan ka dhigayaa in ergeyga qaaska ah ee difaacista shacabka Mareykanka marka arrimaheena la xiriira ayuu yiri in dadaalkeena ama initiative-keena la xiriira dhinaca security-ga gaar ahaan dhinaca Western Hemisphere-ka wadamadan South America waxaan ku dhawaaqaynaa ayuu Sabtida Doral Florida ayaan uga dhawaaqaynaa waxaana xilkaasi loo dhiibayaa
wasiirkii hore ee amniga gudaha Kristen Noem. Marka waa xil cusub oo aan horay u jirin. Waxa uu leeyahay arrimaha dhinaca ammaanka dhinaca South America, wadamadan Panama, Ecuador, El Salvador oo dadku ay ka soo tahriibaan ayaan u xil saareynaa marka sidii shaqadaasi ay u qaban lahayd. Marka waa xil aan jirin kulay magacuyaal ah, maxaa yeelay wasiirkii amniga gudaha ayuu ka qaaday, waxa uu diidayaa meel cidla inuu dhigo. Marka Trump sidaasi ayuu leeyahay. Marka waxa uu sheegay, waxa uu amaanaya marka ninka xilka uu dhiibay oo wasiirka amniga gudaha uu ka dhigay oo senator Oklahoma laga soo dooranayo McWayne Mullen la yiraahdo. Waxa uu yiri 10 sano ayuu ka soo mid ahaa aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka, 3 sanana aqalka Senate-ka ayuu ka mid ahaa. Shaqo wanaagsan ayuu soo qabtay intii uu xilalkaasi gobolka Oklahoma u hayay. Waxa uu leeyahay 17 degmo waa uu ku guuleystay dhammaantoodba 2016, 20 iyo 24. Marka waa taageero weyn oo maaga ah ayuu leeyahay. Waa nin xigmad badan ayuu leeyahay, waa nin geesi ah ayuu leeyahay, shaqadiisana ka soo bixi kara. Ajendaha aan aaminsanahayna oo aaminsan oo ah America First agenda ayuu ila aaminsan yahay markastaba danta Mareykanka in laga hormariyo danaha kale. Marka sidaasi ayuu u amaanayaa ninka xilka uu dhiibay, waxana uu leeyahay wuxuu ka shaqayn doonaa sidii uu xadkeena ammaan uga dhigi lahaa, in dambiyada dhinaca dadka soo galootiga ay galayaan uu u joojin lahaa, dadka kuwa dilayaasha ah iyo kuwa sidoo kalena wadanka sharci darrada ku soo galay iyo sidii dhamma arrimaha draagiska uu wax uga qaban lahaa. Marka si aad ah ayuu u amaanay ninkaas ayuuna xilka u dhiibay. Xitaa qaar ka mid ah senataradu waa ay soo dhaweeyeen, maxaa yeelay waxa ay dalbanayeen Kristen Noem inay xilka ka degto. Waxay leeyihiin xitaa McWayne Mullen waa naqaanaa senatarkan, waana ku faraxsanahay in loo dhiibo. Senator Kennedy ayaa ka mid ahaa iyo senataro badan ayaa arrintaasi sidii maalmood oo la soo dhaafay wasiirka amniga gudaha sababta Trump ku qasabtay inuu xilka ka qaado waxay tahay su'aalaha faraha badan oo ay weydiinayeen in aqalka Senate-ka oo la xiriiray howlgallada ciidamada ay sameynayaan inaysan dadkii u kala aaba yeelaynin oo ay fiirinayaan tirada dadka la soo qabanaya, ay tayada dadka aysan fiirinin oo xitaa muwaadiniin Mareykana la xiray, lagu xadgudbay. Sidaas darteed waxaa sidoo kale la fiirinayay qaabka lacagaha wasaaradda amniga gudaha ay u fangareynayso. Muddo bil ka badan hadda miisaaniyadii wasaaradda amniga gudaha waa tii ay joojiyeen labada aqalba, gaar ahaan dimuqraadiyiintu oo ay dalbanayeen in isbedel lagu sameeyo wasaaradda amniga gudaha. wax miisaaniyad ah ma jirto, maxaa yeelay waxay dalbanayeen in ciidamada ICE kaamarooyin loo xiro, inay waaranti qaataan dadka markay xirayaan, in badge loo sameeyo, in dareys loo sameeyo, waxyaabahaas oo idil ayay dalbanayeen. Sidaas darteed marka cadaadiskaasi uga imaanayay in Congress-ka ayaa Trump ku qasabtay inuu xilka ka qaado. Xitaa qaar ka mid ah senataradu waxay sheegeen inuu Trump soo wacay, gaar ahaan kuwa Republicaanka, oo kala tashtay senatarkan uu magacaabay hadda oo wasiirka amniga gudaha u magacaabay McWayne Mullen. Senator Kennedy ayaa ka mid ah oo dhahayo waan kula taliyay, waxaan yiri waa nin fiican, xilka waad u magacaabi kartaa. Marka su'aashan ayaa shalay la weydiiyey oo 4 bisha xildhibaanada laga soo doorto in labada aqal ayaa su'aalaha weydiinaya. Sanadku waxa ay weydiiyeen in talaadadii, arbacadii oo shalay ahaydna waxa weydiiyay aqalka wakiilada ayaa su'aalaha weydiinaya. Marka xildhibaanadan oo laga soo doorto California ayaa waxa ay weydiisay wasiirka amniga gudaha shalay xiriirka jaceyl iyo waliba in ay galmo xitaa wada sameeyeen oo kala dhaxayay mid ka mid ah la taliyaasheeda oo Corey Lewandowski la yiraahdo. Waxa la weydiiyay ma jira in fal galmaha uu dhex maray. Arrintaas xitaa ninkeeda ayaa fadhiyay meesha, waa ay ka carootay, waxayna tiri waxyaabaha qashinka warbaahinta ay tabinayeen gudoomiye in la igu weydiiyo halkan diyaar uma ahayn. Ninkaas waxa uu shaqeeyaa, waa shaqaale qaas oo dowladda aqalka cad ayuuna u shaqeeyaa, kumanaanka aqalka cad u shaqeysa ayuu ka mid yahay. Marka xitaa xildhibaanada waxay tiri waan ogahay su'aashan inay ku dhibayso, laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad ka jawaabto su'aashan. Bal doodii dhex martay in iyada iyo sidoo kalena in xildhibaanada markii su'aashaasi la weydiinayay sidan ayay wax u dhaceen. Aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta, intaan mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.